mid ka mid ah musiibooyinka dabiiciga ah ee ugu waaweyn dunida waana Aral Sea oo ku taala wadanka Uzbekistan ee ku yaala bartamaha qaaradda Asia. Waxaa laga yaabaa inaanad bad ahaan u aqoonsanayn, waayo waa harada afraad ee ugu weyn dunida. Waana haro aad u weyn oo gaadiid badan mari jireen, dad badanna ay ka kalluumaysan jireen. Laakiin halkii ay masiibadu ka bilaabantay ayaa ahayd markii dowladdii Sofiyeetku ay go'aansatay inay ka jarto webiyadii biyaha siin jiray haradan, oo ay ku samaysay nidaamyo waraab iyo kuwo kale oo agriculture ah. Haradiina ay weyday isheedii biyaha. Maalintaa ayay bilaabantay inay kudho haradu. Faragelinta bini'aadankuna waxay sababatay musiibada intaas leeg. Baddii sidan u camirnaydna waxay noqotay saxarahan. Dekadaheediina waxay noqdeen qaar baaba'ay. Maraakiibteediina waxay yaalaan ciidda. Baddii quruxda badnaydna waxay noqotay saxare ayna cidna wax uga oolin. Wixii mar ahaan jiray 7,000 oo cubic mitir, hadda waa 70 keliya. Hadda sidan ay u egsahay baddii, kalluun kasta oo ku jirana waa u dhintay, maadaama xaddiga milixda ku jirta biyaha ay aad u badan tahay. 35 nooc oo kalluun ah ayaa ku noolaa halkan, haddase waa eber. Markii kalluunkii dhammaadayna, xayawaanadii kale waa ay raaceen. Shabeelladii Kasbiyaanka ahaa, shimbirihii iyo fardihiiba meel ay ka cabbaan ma haystaan. Halka keliya ay ka cabbayaanna waa tuumbooyin yaryar oo loo sameeyay. Gobolkan oo dhanna sidaas ayaa ka dhab ah. Xayawaan keliya ma ahee, dad badan ayaa waayay shaqooyinkoodii kalluumaysiga iyo beer qodashada oo ay ku tiirsanaayeen, maadaama oo aan halkan lagu noolaan karinna waa ay iskaga tegeen. Sheekadu intaas kuma dhammee, waa ay ka dari doontaa. Markii haradii gudhay, waxa gunta ku hadhay milix aad u badan. Dabayluhu marka ay yimaadaanna waxay ka tallaabisaa 100 kiiloomitir. Waxayna abuurtaa duufaan ciid iyo milix ah. Waxayna qarribtaa beero u jira ilaa 500 kiiloomitir. Dadkuna waa ay ku xanuunsadaan. Bal halkan dhibaatada ka jirta intay leeg tahay eeg. Sidaa darteed, reer Uzbekistan waxa ay mar walba ka sheegaan qaramada midoobay in loo aqoonsado musiibo caalami ah.